jijeelo waad hurdaan hurdada ka kaca aan kugu dhaliyay markii inaad isticmaasho orahdaas arinkaas ma jira wax aad kala fariisatay iyo go'aan aad isla gaarteen sida tabashada ama xuquuqda aad raadinayso lagu gaari lahaa midda oo maamul goboleedyadana anaga ka raadsanayna insha Allah hadii la yiraahdo kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkaad inaga daawanaysaan waa Rays Television studio magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya ayaan idin kala soo hadlaynaa guud ahaan akhyaarta hawada inaga daawanaysa waqti walba oo idin tahay waxaan idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijkeeni xalkeen oo toddobaadkiiba hadahayo kale aan idin kaga soo tabin Rays Television studio oo ku leeyahay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya si toos ah ayuu idin kaga yimaada toddobaadkani waxa barnaamijka marti ku ah Cabdiwahaab Ibrahim Maxamed oo ah gudoomiyaha mid kamid ah beelaha dega gobolka Hiiraan ee maamul goboleedka Hirshabelle barnaamijka inta uu socdo waxaan ku dul istaagi doonaa arrimo dhowr ah oo xilligani ka jira gobolka Hiiraan iyo guud ahaanba tabashooyin ay ka tabanayaan dawladda federaalka ee Soomaaliya guud ahaanba dhalinyarada iyo waliba matalaada ay ku leeyihiin dawladda federaalka ee Soomaaliya waxyaabo ay xuquuq ahaan ka tirsanayaan dawladda federaalka Soomaaliya in ay kaga maqan yihiin barnaamijka sida aan idin kugu sheegnay waa xalkeen inta badan waxaan ku raadinaa xalka markaasi xaalad jirtaba barnaamijka waxaa isku soo dubriyay halkan idin kala socodsiinaya inta uu hawada ku jira aniga Cabdulqaadir Umar Cilmi Akiil ah Soomaaliya dhanka farsamada ay gacan weyn iga siin doonta ee qiyaarta aan hawada ku wada xiriirnay markale waxaan idin leenahay ku soo dhawaada daawashada barnaamijkeeni xalkeen oo toddobaadkiiba laba jeer hadahayo kale aan idin kaga soo gudbin Rays Television studios uu ku leeyahay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya waa hagaag daawadayaal markan waxaan si toos ah u guda gali doonaa barnaamijkeena xalkeen intaanu dhanka iyo su'aalaha aanu guda galin aan marka hore soo dhaweeyo gudoomiyaha dhalinyarada mid kamid ah beelaha dega gobolka Hiiraan gaar ahaan galbeedka gobolka Hiiraan oo ka tirsan maamul goboleedka Hirshabelle gudoomiyaha dhalinyarada waxa lagu magacaabaa Cabdiwahaab Ibrahim Maxamed oo aad sida aad ka daawanaysaan bashaashada oo gacanteeda midig fadhiya ugu horeen gudoomiye ku soo dhawow barnaamijkeena xalkeen studio Rays TV xaruntiisa magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh waan ku dhawahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad barnaamijka qaban qaabiyaha iyo dhammaan bahda idaacada Rays TV waa u mahadcelinayaa shaqooyinka ay u hayso ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka iyo dalka Soomaaliyeed dhammaan waa u mahadcelinayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waan ku dhawahay barnaamijka anaguna waan ku mahadcelinaynaa Cabdiwahaab Ibrahim Maxamed markan si toos ayaan barnaamijkeena u guda gali doonaa ugu horeen bal waxaad faahfaahin guud ka bixisaa xaaladda dhalinyarada ku dhaqan gobolka Hiiraan iyo si gaar ah dhalinyarada adigu aad gudoomiyaha u tahay ee aad siyaasadda iyo waliba dhanka horumarada aad ku hogaamiso waxyaabaha aad ka qabataan ee gobolka Hiiraan iyo gaar ahaan waxyaabaha kale ee aad daawadayaashii annagaba nala wadaagi karto ee aad isu soo taagteen iyo shaqooyinka aad qabataan mahadsan tahay marka dhinaca dhalinyarada aan ku hormaro dhalinyaradayda gaar ahaan aniga aan u ahay gudoomiyaha dhalinyaradayda khaasatan waa dhalinyaro reer Hiiraan ah marka reer Hiiraan la dhaho Hiiraan waa la isweydiinaa su'aalo la isweydiinayo waa Hiiraan yaa dega horto Hiiraan waxa dega Xawaadle iyo Jijeele iyo Baadacadde waa fara badan yihiin u jeejeen sheekhaal reer oo xasan kamid ah dhalinyaradayda khaaska ah Jijeele nimanka marka dhalinyarada Jijeele waxbay barteen aqoonyahan waaye wadanka Soomaaliya joogaan Hiiraan ay joogaan saad og tahay waxaan maleynayaa anagu dhulkeena markii la dhaho Jijeele 142 kilomitir waa amni iyo amaan inoo tahay waxaana rajeynayaa xilligii oo anagu aan soo halgamaynay dawladda hore oo xasan ahayd wax kaniini baristamool xataa siiyay ma jirin hadda dadka dagaalamayana waxay heleen xilli ee munaasab ahayd dawlad taageerto heel iyo hoob la garab taagan qabaa'iladana ay garab siinayaan intaas markaan ugu baxo waxa waay anagu gaar ahaan hadaan nahay Jijeele waana la yaqaanaa
waxaan nahay dad culimo diin ah geyiga Soomaaliya laga wada kasaayo ahna hawiye curudkooda waxaa kaloo jirto annaga dowladda Soomaaliya waxaan ku lahayn wasiirkeena waa soo dhawaaday dowladdii hadda farmaajo ayaa wasiir ku xigaan waxaa inoo ahaa xildhibaankayga qaaliga Yuusuf Xuseen Axmed Gamadiid oo wasiir dowle soo noqday marka ku xigaan bes ah annagu waxaa ahayn wasiir aana dhicina lahayn dowladdii dhexe ilaa dowladihii hore markii laga soo tagay Maxamed Siyaad Barre ilaa hadda xuquuqdaasi waa tabeynaa ilaa hadda waa naga maqan tahay waxaa kaloo aan aad u tabeynaa xilal fara badan oo gudoomiyayaal ay ka mid yihiin agaasimayaal ay ka mid yihiin intaba ma haysano marka jijeelo la dhaho annagu waxaa waaye ganacsatada bakaaraha xataa annaga ugu badan meel walbo oo jijeelo dago waxaa waaye waa dad dowlad jecel ah haddadan markii la doortay Xasan Sheekh Maxamuud waxaa aad iyo aad u soo dhaweeyay qabiilka soo dhaweeyay annaga ahaynay odayaasha marka waxaa waaye xubno fara badan aan dowladda Soomaaliya ku tabeynaa dhalinyaraduna waxaa waaye waa in boosaskoodii loo raadiyo dad wax bartay waasaan kuu sheegay dal iyo dibad jooga dhalinyaro aan dhib badnayn sideedaba beesha jijeelo waxaa lagu yaqaanaa ma dhib badno waa aad iyo aad qabiil aad u degan waaye nin waliba oo markaad wareysato jijeel ahay markaad dhacdo wuxuu ku leeyahay aad iyo aad maasha Allah si fiican ayaan ku gartay gudoomiye Cabdiwahaab sharaxaad guud ayaad ka bixisay deegaankii iyo waliba dhalinyarada aad sida gaarka ah ugu matasho gudoomiyenimada gobolka Hiiraan ka soo jeedaan oo ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle tabasho ayaa ku jirta hadalkaagii sharaxaad ahaa tabashadaasi adigoo ah gudoomiyihii dhalinyarada ma la wadaagtay siyaasiyiinta dowladda federaalka kugu mataleysay ma la wadaagtay siyaasiyiintii heer gobol ee maamulka Hirshabeelle kugu mataleysay arrinkaas ma jira wax aad kala fariisatay iyo go'aan aad isla gaarteen sida tabashada ama xuquuqda aad raadinayso lagu gaari lahaa waa mahadsan tahay aad iyo aad kaaga mahad celinayaa barnaamijkaas waan raadinay waliba annagoo badan anaga hotel intaan tagnay war murtiyeed ka soo saarnay oo aan leenahay in maaragtay xibintaas annagu naga maqan tahay aan baadi goobeeno dhalinyaro fara badan ayaa hotel ku dhiganay marka xaflad ku dhiganay war murtiyeedka aan ka soo saarnaa kamid ahayd saad og tahay beeshu aad iyo aad u facweyn tahay baay iyo bakool ilaa waxaan degnaa mustaxiil khilaafe ilaa xuduud Ethiopia degnaa jijeelo dad yar maaha waa dhul weyn oo ballaaran oo baaxad leh ayuu leeyahay jijeele laakiin waa xoogaha maaragtay siyaasiyiinta igu matasho xildhibaanada xilli doorasho ay dhacday oo kursigiina faraha ka baxay waa saa ku sheegay ku xigeena soo noqonay wasiir dowlad ku xigeen asaguna hadda dowladda Xasan faro ka baxay oo waaba la waayaba marka xildhibaanada aqalka sare iyo aqalka hoose waxa igu matala nin la dhaho Xasan Iido Maxamed Xasan Kubac aqalka sare waaye ninka kale tan waxa la yiraahdaa xildhibaan Yuusuf Xuseen Axmed Gamadiid labaduba intaan ka salaamaya salaan diiran ayaan u marinayaa labaduba oo xildhibaanadeeda qaaska ah waxaan rabaa xuquuq waliba ka maqan beesha in madaxweynaha hadda jooga talada haya saan ognahay wuxuu ku jiraa xaalado ilaahay la garab galaan leenahay laakiin annagu hadda xilli munaasab ah ayaan ku soo aadnay marka mana ka faa'iideysanayno dhaqdhaqaaqa jiro saan ku sheegay dhulkeena waa xur 100 iyo xoogaa kiiloomitir annagu dhulkeena aamin waaye nidaam waaye marka waxaan leenahay marka annagu hadda waxaan rabnaa wixii ka dambeeya in xuquuqdeeni dowladda noogu maqan aan raadsano man bilaaw ilaa dhamaad si kale hadaan u dhaha waxaad moodaa su'aashii in aad dhan kale aad u dhigtay waxaadna ka dhawaajisay xildhibaan ka tirsan aqalka sare oo senator ah iyo xildhibaan aqalka hoose ah
gudoomiyaha ma la fariisatay idinkoo iska kaashanaya sidii lagu raadin lahaa ama tabashadii dhalinyarada aad ka keentay ahayd in xuquuqda dawladda ay ka rabaan in loo raadiyay labada xildhibaan ma u gudbisay labada xildhibaan waa loo gudbiyey waxay kuu sheegeen aniga qaas uguma gudbinin laakiin dhalinyara u tagtay oo aniga aan gudoonkooda ahay markay la fariisteen waxay dhaheen anagu waana dhaafay saad ogtahayna hadda kursigaas jid la qaatay kama xumin walaalahan waaye waana taageersanahay inay qaataan laakiin kursigii beesha Jijeele ee wasiirka ah wasiir aana dhicin oo ahaa meeshaas waan ku tabaynaa waxaa kaloo xibin noogu maqan tahay Koonfur Galbeed madaxweyne ku xigeenaa lahayn ilaa hadda Jijeele madaxweyne ku xigeen Koonfur Galbeed ma haysto waxaa kaloo xibin nooga maqan tahay Jubbaland xildhibaana ku leenahay beesha Jijeele ku leedahay ayaduna waa maqan tahay marka waxaan rabaa siyaasiyiinta iyo xildhibaanada iyo dhammaan cid waliba waxgarad ah inaan raadiyo aniga xaq u dirarka dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyaradeeda beesha Jijeele waxaan rabaa aqoon-yahankayga dhammaan inay helaan xuquuqda ay ku leeyihiin Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya waa gartay marka qaab ceenkay ah ayaa kuraastaas aad sheegtay labada maamul goboleed si gaar ah carabka ugu dhufatay ee kala ah Jubbaland iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya iyaguna qaab ceenkay aad u wajahaysaan oo aad damacsan tahay inaad ku raadisaan Koonfur Galbeed hadda waxaa madaxweyne ka ah doctor lafta gareen waa la fariisanaa beesha waxay leedahay odayaal iyo waxgarad nabadoonay leedahay Jijeelana waa 18 laf walibana nabadoonay leedahay waxaa jiro wabar wakiil wabar jiro dhammaan odayaasha iyo xildhibaanada ayaguna waxaan rabaa inay ku raadiyaan xuquuqda ka maqan qabiilka Jijeele inay iska kaashadaan ul iyo diirkoodna noqdaan habeen dhaweeyte Facebook-gayga waxaan ku soo qoray Twitter qoraal ah oo aan ku dhahayo Jijeele waad hurdaan hurdada ka kaca waad hurdaan markaan dhahayo maxaa kugu dhaliyay markii aad isticmaashay orahdaas waxa igu dhaliyay qabiilka aniga aan ka dhashay horta saan ku sheegay waa qabiil aad iyo aad u facweyn marka wax ka maqan yihiin wixii ka maqan waa la raadsadaa marka awoodda lagu raadiyay ma dhahayo xeelad ku raadiyaan leeyahay hadda Axmed Madoobe wali islaama fariisan waa maamul goboleed Jubbaland saad ogtahay Kismaayo waxay ii sheegeen dadka joogay in booskaas xildhibaanka Jijeele uu diyaar u yahay oo miiska u saaran yahay waxaan rabaa marka xildhibaanada hay yimaadaan oo yiri xildhibaanadii aan baraarujinaya saad ogtahay Hirshabeelle kuma qadsanin gudoomiyaha baarlamaanka koowaad ku xigeenka koowaad Siraaj Sheekh Saaq Wadi la dhahaa waa awogay aabe adeerkiis waaye xildhibaanada iyo wasiiradu intaba waa noo dhameystiran yihiin wax hadda oo Hirshabeelle anaga aan ka tabeena ma jirto laakiin waxa wax nooga maqan yihiin dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo Jubbaland dhawaan socdaal aad ku tagtay magaalada Kismaayo oo xarunta ku meel gaar ku ah maamul goboleedka Jubbaland odayaal dhaqan iyo dad kugu matal halkaas inay joogaan dabcan waa dareemaya